kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekadii curad oo aad halkan kala socoteen. sheekadan oo ah qiso dhab ah oo ku dhacday mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa qoraalkan ka sameeyay wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. halkaad kala soconaysaanna waa channelka Ogaalka Audio Som. ku soo dhawaada qaybta xigta qaybtii horay aad u soo dhageysateen. qofna uma sahlana in isagoo cilaaj uu ku socdo uu haddana dareenkiisa siiyo waxa ka socda hareerihiisa. mahsanaanteyda iyo habdhaqankayga ka duwan bukaanadii soo maray wadaadkan haysta xarunta ayaa shaki weyn dhaliyay. mar qura ayuu wadaadkii dalbaday in loo wada banneeyo qolka oo aniga iyo isaga qura isugu soo harno. dhammaan dadkii way dareereen, waxaan noqonnay labadiina keli ah, aniga iyo wadaadka. wuxuu ii sii daayay gacantaydii uu maantoo dhan hayay. anigu waxaan dhowrayaa bal wuxuu sameeyo wadaadku, marna ma doonayo inaan fashilmo. wuxuu su'aal iiga bilaabay magacaa, anigoo islulaya sidaydii oo sii wata jilliinkaygii ayaan idhi waa curad. markaas ayuu wadaadka iga dharbaaxay dhabanka midig isagoo igu celinaya ii sheeg magacaaga. waxaan ku jawaabaa anna waa curadkii jinka ahaa. ilaa 5 jeer su'aasha iyo dharbaaxada wadaadku way igu wada socdeen, anna meel uma dhaafin inaan ku jawaabo adeerayaal waa curad. anigu waxaan ilaashanayaa hadafkayga oo waxaan ku jiraa loolankii ugu adkaa ee abid noloshayda soo mara. waxaan ka feejignahay wax walba oo fashili kara hadafkayga, haddana waxaan la sahashan karin marxaladda aan sahminayo. waa mid aanan u lahayn wax waayo aragnimo ah oo dhammaystiran. keli ah dhiirigelinta aan haysto ayaa ah inaan mar ku soo guulaystay. waxaanan qaadan karin marnaba inaan fashilnahay saacaddan oo wadaadku wuxuu gartay inaan wado jilliin oo aysan jirin cid dushayda ka hadlaysa. malaha wuxuu su'aasha iyo dharbaaxada iigu wado waa iscaddee nin yahow caafimaadka qaba oo sheeg magacaaga dhabta ah, ileen waad fashilan tahaye. anna waxaan isleeyahay armu wadaadku moodayaa inaad ilowday magicii aad hadaaye sheegtay. markaasaan iskaga xargagay ama ku adkaystay adeer waa curad. ugu dambayn wadaadkii oo amakaag indhaha la taagaya, haddana la yaaban sababtay u kalifi karta inaan qoyskayga u jilo riwaayad noocan ah oo aan sheegto ama aan aqbalo xanuun aan weligay xitaa ay qaban, ayaa durbadiiba ila galay waraysi dheer. waxaan uga warbixiyey xaqiiqada aan ku noolahay ayadoo indhahaygu ay mararka qaar biyo soo dhaafayeen. aad buu wadaadku u qiirooday, waxaana kala kulmay qalbi bini'aadannimo. wuxuu igu yidhi maxamuud iyo maamada mooye yaa kale oo mas-uul ah oo kula socday. waxaan u sheegay in adeerkeen uu nala socdo. wuxuu haddana i su'aalay imise jeer ayaad aragtay ninka duqa ah iyo gabadha. waxaan u sheegay in gabadha aan arkay ugu yaraan 6 jeer, laakiin odayga 4 mar baan araggiisa xasuustaa. wadaadkii oo aad moodo inuu xisaab kale ka shaqaynayo ayaan ka fahmay isagoo leh tiro 10. wax cilmi ah kama haysto waxa 10ka ah ee uu wadaadku isku darsaday, waxaase idinku aad fahmi kartaan inaan bixiyo jawaab 6 iyo 4 ah. wuxuu ii siiyey dardaaran kaas oo aan ka xasuusto inay xanuunka waalida ka sii daran tahay marka aan ka been abuuro caafimaad qabka ilaahay siiyey. wuxuuna iigu garaabay in dad badan oo horay ula kulmay ay caafimaad daradooda u sabab ahaayeen dadka ugu dhow qoyska ama ehelada. arrintanna sababo badan ayay ku timaadaa. mar waa dhagarta ama damaaciga aadmiga, marna waa jaahilnimo. laakiin aniga sababta xaaladayda midda ay tahay ma cadda. waxaa loo yeeray adeerkeen oo nagu soo biiray aniga iyo wadaadkii, waxaana loo sheegay inaan ahay ruux caafimaad qaba, laakiin ay jiraan daruufo u baahan in dad isla qoyska ah ay soo baaraan si loo ogaado xaaladda jirta.
adeer way ku adkaatay inuu fahmo. Kadib wadaadkii ayaa su'aalay, adeer aaway Maxamuud? Adeerkii baa ku jawaabay, Maxamuud wuu tagay oo maxkamadda ayaa looga yeeray. Maalmahan halkaas ayaa kiis adag uga socda. Waxaan mar quran beeniyay dareenkaygii ahaa Maxamuud wuxuu ka cararay inaad goobta ku kashifto oo waxaan aaminsanaa inaan cabsi geliyay markii aan ahaa jinkii curad. Waase mid danihiisa u baxay oo ku jira xaalado ka sii waaweyn kuwayga. Tani waa fajac kale. Xageen u qaadaa waxaan i haysta? Ha degdegin, weli wax been noqday ma jiraan. Waa talada naftayda aan ku dejinayay. intaas kadib aniga waa la ifasaxay. waxaa isku haray wadaadkii iyo adeer. waxaa la isoo fariisiyay meel bannaanka ah. dadku indhaha uunbuu iga eegayaa. qofka ay indhaheenu isqabtaan horay buu ka sii jeedsanayaa. qaar iga cabsanaya iyo kuwa ii cabsanaya ayay dadku isugu jiraan. waxaan arkay Sahra iyo gabadhii aan u xiisay araggeeda oo kursi fidsan ku wada fadhiya, dhankaygana soo eegaya. markaas ayaan dhoolla cadeeyay. labaduba dhoolahooda quruxda badan ayaan arkayay. Sahra ayaa timid agtayda, laakiin boqoradii naftayda xilligaas kuma kalsoonayn agtayda oo halkeeda ayay naga soo dhowraysay. Sahra ayaa aad iigu sheekaysay ilaa ay dadkiina arkayay ay sawirteen inaan ahay qof caadi ah oo la ag fariisan karo ama loo tegi karo. markaasay bilaabeen in qof dadkii iigu yimaadaan. waqtiyada qaar waxaad noqotaa adoon hal ruux keli ah ka hela farxadda, sida ay aniga walaashay Sahra ii ahayd. haddaba adeer iyo wadaadkii oo wada socda ayaa soo baxay. way soo wada hadleen ilaa xad anigu ma ogi waxa lagu soo ballamay, laakiin waa waxaan wada ogaan doono. ruux walba oo aan u sheego qisadayda wuxuu isweydiiyaa intaan anigu isweydiiyo maalin walba, sida waa kuma qofka ka dambeeya dhibaatadan i haysata. odayga iyo gabadhu maxay ahaayeen? madaxa muxuu kaaga salaaxay odaygu? kursiga maamada maxaa soo siiyey odayga? gurigii qurxoonaa iyo ganjeelkii bacaadka ahaa sidee isku qabsanayaan? weydiimahan waxay dadku ogaan karaan markaan anigu helo waddo aan ku fahmo dhammaan waxa dahsoon. haatan waxay qisadaydu galaysaa weji marxalad cusub oo soo dhoweynaya ogaalka dhacdo walba iyo siraha ka dambeeya. la soco qaybta 9.